الله عليكم ورحمة الله وبركاته الهانتي المال والباجوكتان يقول والبي حل والبي كومريسو وصاحبك مصطفى محمد علي وذلك كسود والدوبية ميديا alaabaan naga barataan inaan inii soo gudbino isla markaasina waxyaabaha dalkeena hooyo siyaasadda iyo halka uu marayo aan falanqeyno qodobkeena falanqeynta intaan guda galin oo xiisaha gaarka leh bal aan ku yara xasuusiyo haday tahay booqashadaada koobaad isla markaasina oo muuqaalka markii kugu horeeyay ku soo gaaray soo gashay Dobiya Media fadlan calaamad guduudan horta subscribe-ka noo taaba gambareelka furo si aan macaamiil joogto halkaan ugu wada noqono oo mar walba macluumaadkan ku wada xiriirnaha soo geliyo ay heshid hadee muuqaalka jeclaysataan calaamada like noo taaba anaga dhiirigelin ay noo tahay asxaabtaada la sii wadaagay si gaarsi oo si share garay si ay dad badan u sii gaarto waxaana sidoo kale aragtidaada iyo fikirkaadana qaybta comment-ga ee hoose noogu soo reeb haddii aan guda galno qodobkeena isla markaasina wuxuu noqon doonaa aan dib istaagi doonaa shirkii teendhada Afisoni oo maalintii labaad galay isla markaasina maanta doodu ay aad u kulleed isla markaasina loogu doodo qodobo dhowr ah isla markaasina laga warbixiyay muxuu yahay qodobka inta badan diiradda lagu saaro aad u kululay gobolada waqooyi arrimaha doorashooyinka xubnaha hukuumadda ciidda soo maamulayso oo maanta noqday kii uu adkaa doorashada isla markaasina shirka wada tashiga lagu hadlayay sidoo kalena waxaa qayb ka noqon doona isla markaasina aan idin soo gudbin doonaa Dobiya Media nagala socod doontaana hadduu eebaha awood leh laga helo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Xajaar iyo sidoo kalena wakiilka midowga Afrika Francesco iyo xubnaha kale ee saraakiisha midowga Afrika ee AMISOM oo kulan Muqdisho ku yeeshay laguna hadlay arrimaha doorashooyinka warbixin la xiriirsan waa daawo doontaan qodobadaas oo dhameystiran ayaa idin soo gudbin doonaa u diyaar garooba habsami leh maanta u dhacay shirka wada tashiga golaha qaranka ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee xal lagu gaarayo teendhada Afisoni ayaduna dhammaan maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ay ka soo wada qayb galeen oo shir gudoomiye ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble waxaana kulankaasi la sheegay shalay iyo maanta inuu ahaa mid dooda lagu la faguray arrimaha doorashooyinka muranka ka jiray idoon inkastoo maanta aad u kululay doorashooyinka arrimaha loogu doodayay waxaana sida diiradda lagu saaray wararka aan helayna sheegayaan arrimaha gobolada waqooyi xubnaha ku matalayo waxaana la sheegay in labada dhinac ay isku hayeen ee goobta aysan fadhinin ayaa la sheegay in aad u dheeraatay sidii loogu dooday arrintaasi inkastoo xalay magaalada Muqdisho oo kulamo ay ka dhaceen ayaa waxaa jirtay kulan oo la yeesheen madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland xubnaha oo hogaamiyo Mahdi Guuleed oo ra'iisul wasaare ku-xigeen isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya xubnaha ku matalayo iyo sidoo kalena kulankaasi markuu dhacay ay jireen kulamo kale oo dhacay oo la yeeshay xubnaha kale ee Cabdi Xaashi ayna fikraha siyaasadda aaminsan waxayna sheegeen xubnahaasi irwaleed ku dhow in ay jiraan dhaliilo ay qabaan isla markaasina ay tilmaamayaan kuwaasi oo ah in ay ka biidiysan yihiin qoor oo madaxweynaha Galmudug isla markaasina uu yahay mid ay ku tilmaameen in uu u janjeero dhanka Mahdi Guuleed oo farmaajo u dhow yahay dambeyntiina magaalada Muqdisho maanta kulan waxaa ku yeeshay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Xajaar iyo sidoo kale wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya u fadhiya Francesco Mader iyo sidoo kale saraakiisha u qaabilsan dhanka howlgalka midowga Afrika AMISOM ee ku sugan kulankaasi Xajaar iyo sidoo kale wakiilka Afrika midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo saraakiisha AMISOM ayaa wuxuu ahaa mid ay diiradda ku saarayeen arrimaha doorashooyinka amnigeeda sidii loo sugi lahaa Mader iyo sidoo kale Xajaar iyo saraakiisha kale ee AMISOM ayaa waxay si weyn u lafuureen sugidda iyo waliba qaab wanaagsan sidii loo sugi lahaa qorshaha istiraatiijiyadeed ee amniga sugideeda loogu arrinsan lahaa in loo qaban lahaa doorashooyinka dalka ka dhacaysa dowr muuqda ay ka qaadan lahaayeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo sidoo kalena hay'adaha kale ee howlgalka AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka waxaana labada dhinac ee isku raaceen iyo qorshooyin isku soo bandhigeen ayaa wuxuu imaanayaa xilli dhawaan uu soo sheegay wasiirka amniga ee xilgaarsiinta Mr. Xundubey in ay xukuumadda federaalka Soomaaliya ay hayso qorshe ku aadan sugidda ammaanka ee isla markaasina ay xukuumadda soo diyaarisay qorshaha iyo ciidamada ammaanka sugayo waxaana mar haddii ay soo baxdo arrimaha doorashooyinka ammaankeeda sida loo sugayo inkastoo ay muran hore u jiro intana hadda ay bilaabatay wadahadaladii iyo heshiisiintii ayaa waxaa muuqata diyaar garow looga galayo arrimaha doorashooyinka dalka sidii markay ugu dhici lahaayeen ammaankeeda loo sugi lahaa
guud ahaan intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa khiyaarta waana jecelnahay qodobkiin arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya balse aan ku yiri xasuusiya gadaal noogu soo birtay fadlan calaamada guduudan horta subscribe-ka noo taba gambaleelka furasi ama macaamiil joogto u noqono halkaan wax markaan soo gelin isla markaas si toos ah ugu soo dhaco hadii muuqaalka jecelahay like taabo anaga dhiirigelin ay noo tahay asxaabta la sii wadaaga u sii shirgaray si dad badan u sii gaarto wixii aragtiya fikra noo yeeshin qaybta hoose commentiga noogu soo reeb tan iyo mar kale intaan ku kulmi doono qodob kale ama sidoo kale war kale oo xiiso galay waxaan idinka tagay anigoo Mustafa Maxamed Cali sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh